إلهي بمهد سبحانه وتعالى إنه قلدي نعمة الإسلام runtii waxaan halkan uga mahad celinayaa kana salaamayaa beesha ballaaran ee runtii shirkan muddada badan socday sida qiimaha iyo milgaha leh runtii una bilaabay una soo gabagabeeyey aad iyo aad baan uga mahad celinayaa haddii ay noqon lahayd ganacsatada haddii ay noqon lahayd cuqaasha odayaasha madax dhaqameedka waxgaradka hawsha inta badan ku soo jirtay aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa hawsha waxaan kaloo u mahad celinayaa iyagana dadweynaha iyaguna soo ajiibay ama marti sharafta kale runtii kala soo qayb gashay hawshan aad iyo aad baan runtii uga mahad celinayaa annaga maamul ahaan waxaa noo sharafa in shirarka lagaga tashanayo nabadgelyada iyo waxqabsiga iyo iskaashiga runtii la taageero lana dhiirigeliyo waa siyaasadda runtii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse bixi cabdi uu nagu hogaaminayo inaanu taageerno wax kasta oo runtii nabadgelyada ay kow ka tahay horumarka iyo bulshadana inay nabad ku wada noolaato shirarka noocaasa inaanu annagu qiimayno ahmiyad gaara bay runtii noo leedahay intaa kadib run ahaantii shirkan qodobada ka soo baxay haddii ay noqon lahayd ta gudaha iyo haddii ay noqon lahayd taa dibadda labadaba runtii waanu soo dhoweynaynaa waayo waxay ku jirtaa maslaxadda runtii gobolka iyo maslaxadda qarankuba in bulshada laga dhiso xagga nabadgelyada iyo horumarka run ahaantii qarankeenani waxa uu ku taabad galay oo uu horumarkan ku gaadhay waxa weeyaan salkii loo dhigay nabadda haddii aan nabadda laga shaqayn lahayn maanta qiimaha ay somalilan leedahay ma yeelateen waxaynu kaga duwannahay runtii mandaqadaha kale ee runtii geeska afrika iyo waddamada aynu jaarka nahay soomaaliya waxa weeyaan nabaddii aynu qaadannay ee aynu dhidibada u aasnay ee ay hormood ka ahaayeen runtii aabbayaasheen iyo awowayaasheen tii aynu dabada haynaa taasaana keentay in horumarka iyo barwaaqada iyo wanaagguba runtii uu yimaado dadkuna ay nagu soo hirtaan marka mar walba marjaca aynu haysannaa ee aynu ka shaqaynaynaa waxa weeyaan waa nabadgelyada marka nabadda in la ilaaliyo wixii waxyeelayana aynu meel uga soo wada jeesanno waxa weeyaan waa mid naga go'an annagu ka maamul ahaan waxaan idinkula shaqaynaynaa beelaha iyo bulshada kaleba wixii nabadda waxyeelaya inaanu gacan biro lagu qabto annaguna aan idinkala shaqayno idinkuna nagala shaqaysaan waxyaalaha keena nabadgelyo darrada waxaa ka mid ah runtii waynu ognahay dilkaa ka mid ah in dilka markuu dhaco runtii laga wada gurmado ciddii dhibta ku dhacdayna ma garanaysaa loo gurmado kii dhibta geystayna gacanta lagu soo qabtaa qurux badan si aanay nabaddu faraheenna uga bixin run ahaantii beesha halkan shirka ku qabsatay aad iyo aad baan runtii u bogaadinaynaa hawshaa iyo qoraallada ay soo saareen annaguna runtii waa kula shaqaynaynaa wixii nabadgelyada naga qoseeya diyaar baanu nahay inaanu gacan bira kula qabanno beelaha kale ee runtii iyaguna la degan gobolka iyagana waxaanu leenahay runtii inay ku daydaan oo xagga wanaagga iyo xagga horumarka laga wada shaqeeyo xukuumadda jamhuuriyadda somalilan runtii maalin walba waxaa la qabanayaa haba yaraadaane oo dhaqaalo badan ma hayno laakiinse maalin walba inta la qabanayaa waa in kooban waxaynu jecelnahay dadkeennu waa dad inta badan iyagu isku tiirsan haddii ay noqon lahayd qurbojoog iyo qolqoljoog xukuumadda keliya lagu hadlayn runtii oo dadku ay iyaguna ay bilaabaan barnaamijyadii iskaa wax u qabsa ahaa iyo wixii tabarucaadka ahaa ee bulshada iyo gobolka iyagana lagu horumarinayey inaynu ka qayb qaadanno ayaynu jecelnahay hadalka waan badiyey waxaan idinkula dardaarmayaa qodobada shirkan ka soo baxay oo kow ay ka tahay in nabadgelyada ma garanaysa haddii la hirgeliyo annaguna idinkula shaqaynaynaa wixii runtii u baahan
in aanu annagu wax idinkala qabanno gobol ahaanna diyaar baanu nahay inaanu idinku taageerno haddii ay noqon lahayd xagga nabadgelyada iyo haddii ay noqon lahayd waxyaalaha ay soo gaadheen idinkana waxaa laydinka doonayaa go'aamada soo jeediseen inay noqdaan qaar idinka horta ay iska bilowdaan oo runtii ku dhaqankeeda iyo ma garanaysaa dee shuruucdeedaba idinka laydinka arko annaguna aanu idin barbar istaagnaano haddii ay noqon lahayd waxgaradka haddii ay noqon lahayd haweenkii ma garanaysaa iyaguna u dhabar adeegaya hawshan inay hariya habeenba dee idinka taageeraan haddii ay noqon lahayd waxgaradka kale iyaguna gobollada kale dee runtii ka yimid ee runtii u soo banbaxay inay shirkan idinkala qayb qaataan aad iyo aad baad u mahadsantihiin